Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ka qoomameenayaan sababta Estevao Willian aanay u keenin caasimada Madrid iyadoo Chelsea ciyaartoygan ay ku qancisay inuu soo wacdo galbeedka magaalada London. Blue oo tartanka Estevao ka guuleysatay dhowr kooxood oo kala gedisan ayaa Estevao ku qaadatay 29 milyan isagoo ka yimaaday kooxda Palmeiras. haddii Estevao uu sii joogteeyo performance-giisana waxay ka dhigan tahay in Chelsea ay bixin doonto 21 milyan oo ay siin doonto kooxda Brazil waana heshiiska ciyaartoygan markii hore uu ku baxay. Hadda waa mid ka mid ah ciyaartoyda da'yarta ah ee guud ahaan kubadda cagta ugu wanaagsan waxaana 11 kulan uu ka soo muuqday heer qaran isagoo weli aan gaarin 19 sano waxaana la barbardhigaa gool iskooraha ugu sareeya ee Brazil Neymar. Estevao kaliya 7 kulan oo Premier League ayaa sanad ciyaareedkan ugu soo bilowday kooxda Chelsea. ESPN Brazil ayaa ku waramaysa in ciyaartoygan haddii uu sii joogteeyo bandhigiisa Stamford Bridge 2029 uu ka mid noqon doono 10 ciyaartoy ee dunida kubadda cagta guud ahaan ugu wanaagsan. Estevao waxa uu noqonayaa mid sii joogteynaya bandhigiisa Real Madrid. Tani waa ay ka qoomameenaysaa go'aanka ciyaartoygan ay kula wareegi waayeen. Estevao mid kasta oo ka mid ah labadii kulan ee saaxiibtinimo ee Brazil intii lagu guda jiray bisha November ee international break goolal ayaa uu dhaliyay. Guud ahaan waxay ka dhigan tahay in 5 gool uu dhalinayo 11 kulan oo qarankiisa uu ka soo muuqday. kadib markii scoring uu sameeyay ciyaartii Brazil ay drooga la galeen Tunisia ee habeennimadii Salaasada ahna waxaa loo sheegay inuu noqon doono mustaqbalka mid ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or. sidaasina waxaa ku waramay macallinkii Tunisia ee Zami. moobilkaaga ka daawo ciyaaro iyo filimaan adigoo adeegsanaya abka Daawo TV. fadlan la xiriir lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda.